saddex sano abaar saayida baan nagu saloolayde saddex sano abaar saayida baan nagu saloolayde sofkii la dhaqayo dadkani sahayda loo haystay waxna socoyay nooluhuna waa sii dumahayaane turmi iyo haraad silicleba lala sadsaayaye baraagii la sugayo muddey dhacantu saarayde nin dabeer salba u labada tiin sugaya mooyaane afar side madoobow miyiba waa ku sugu kuune sodog iyo ninkii gabadh ka qabay waa isa seegeene kii siqiyahaabaan bakayl saaka ku hubaaye lama kala sitroona ee hadeerto siman adduunkiiye oo siiga case mooye ma arag saatan oo kale haddaan saatirkeen aanu yasirin saakan sida joogtaa sulfatayoo sidii solay madow bay ku socotaaye samrise maayo oo eebbaheen waa u saburayaaye sidii yaan ishaartana ilaahay waan ka sugayaaye nabsi suuxsan aan jiray ilaahow sarayu soo toosi xidigiisu ma isnaa ilaahow saaka naga guuro saxalkiiyo mariiqiyo ilaahow sabanna weydaarto sida bari ilaahow madax sallaxan subax ka soo boodo allow deeqa waa sugahayaye sabadka noo dooji barwaaqadii sallaxan buu nafluhu saami ka helaaye sixintiiyo garoorhkana ilaahow shabiga loo dhiibo seeg hadduu yahay darbaan socod awoodayne soomaaliyo idil ilaahow madarkoo samayo salaan kadib halkaa aanu joogno dad iyo dunyaba waa lagu jilicsan yahay dadkuna marka loo yimaado qofna waxa danta daacaddu ka hadlaa qofna wuxuu ka hadlaa adigu meelo kale iyo waxbuu wax ku daraa deegaanka aan ka hadlayo maanta arigu wuxuu daaqaa iyo geelaba hadda geeluna waa u dhow yahay arigu wuxuu cunaa hiishii hore oo xooluhu ay dhigi jireen indhahaan saaray dembi la iiga qorimayo ka daalayma leh hiish xeryaha geela buu inta tago uu fariisan jiray hiishuu cunaa naf buu la aadi waa basayaa waa bukaa bitrinaariyuu u baahan yahay ilaa 6 sano bitrinaariya maanu arag 6 sano maanu arag kormeer buu u baahan yahay daawo loos u soo baxdo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay nafaqayn wuxuu u baahan yahay cunno wuxuu u baahan yahay inuu cid leeyahay oo dawlad leeyahay iyo dad ka sareeya bay xooluhu u baahan yihiin taas xoolaha halkaa baan kaga haray dadku wax walba nuujisay leeyihiin dadku xooluhu nuuga waa la qashaa waa la maalaa waa la rartaa waa la gataa intifaaca haddii aan reer miyi nahay ama Soomaaliyaba xoolo wax ka maarma inay jirin ayaa wixii wax garanaya ay sidaas ay ugu saxanta xoolihii sidaas baa heerkoodii mutay haddii heerkii xooluhu uu sidaa mutay haddee dadkii marka maqal buu noqday maqashi xoolaha nuugu jidhuu noqday dadkii waa dabagalay waa jilicsan yahay wax uu cuno ma haysto xoolihiisina halkaas wadadaas bay markaan ku jahaysan yihiin waxaanu marka adduunka ka rabnaa caalamka ka rabnaa oo sheegaynaa hay'adaha caalamiga dawladda Puntland qorsheeyayaasha inta xil qabto inta xanuunsanaysa inta istaagi karta warkii jiifaa inuu tooso kii fadhiyayna inuu istaago kii taagnaana inuu dhaqaaqo xaaladda ayada sida ugu degdeg badan in wax looga qabto oo aan gacan u helo oo taageero u helo oo gurmad u helo oo dhaqso naloo ku hawlgalo intaa ayaanu idiin sheegaynaa hadhowdii hadday wax dhacmeelba hadday culays ka dhacdo culaab ka dhacdo dadku mar kadib baa la hadlaa waxaa la yiraahdaa meesha ma laga soo hadlo war meesha hadday saa ka jidhay ma wax laga soo sheego war meesha ma waan cidu joogin anigu odayaasha deegaanka laale ayaan ka mid ahay inta wax laga weydiiyaan ka mid ahay
inta ka xog haysaan ka mid ahay inta joogtada ahaan ka mid ahay waxa soo gala iyo waxa ka baxa labadaba sida xaaladeedu tahay xaaladeedu maanta serious bay maraysaa xaaladda lacale serious bay maraysaa waxay gacan dhaqsale oo fudud oo taageero oo wax loo qabto bay doonaysaa wax laga qabto oo degdeg gurmada ay hesho assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu waa ka bax meesha waxa ka jira markii warbixin laanteeda aanu sheegno baahidad iyo miduuyo oo isugu jirto biyaha iyo baadka labadaba waa isugu jira xoolaha dadku cuni jiray xoolihii waxa laga cuni jiray waa gabeen dadkiina hadii xoolaha haduu cuni jiray waa la garanayaayo baahidii buu meesha la fadhiyaa beera ma lahayn wabi ma lahayn bad laga kaluumaysta ma lahayn meesha xoolaha laga cuni jiray xoolihii hilibkii waa gabeen caanihii waa gabeen cunadii waa gabeen hilibkii laga qalan jiray biicii magaalada kii loo sii dhiibo abaaro hadday dhacdo dadku xooluhu wada qaada oo wuxuu dhigaa magaalooyinka neefkii geela $100 lagu heli maayo hadduu buuran yahay oo fiican yahay neefka ariyada waxaa la siiyaa 35 iyo 20 baa laga soo bixiyaa haddii wax ay gooyaan lama arko $100 waxay gooyaan marka 2 kiish oo sonkor wixii oo loo jeedo dollarka aan cunno oo haddii xoolo lagu soo gato waxba ma gooyo kiish sonkor laga soo bixiyo meesha baahidaas ka jirta MCH male oo daawadii waa ka maqantaa xoolaha waligii nooma imaan xoolaha waxaa noogu dambeysay muddo 15 sano laga joogo baa xoolo la duro iyo kaambeynka xoolaha nalooma yimaado waa nala ilaaw dad iyo duuyo midna waxa noo kuma kala daawaa baahida kale dadkaanu la qabna waxaanu codsanaynaa oo maamulka Puntland iyo dawladda Puntland maamul ma dawladda Puntland iyo dawladda federaalka iyo guddiga abaaraha iyo dadka muslimiinta oo waxaysta oo Soomaalida iyaga ka qanisan gaalada iyo waxa la doonayo dadka muslimka oo Soomaalida dadka qanisan baa ku jira oo wax bixin kara inta waxa ka doonaa iyo guddiga abaaraha in loo gurmado in wax la soo gaarsiiyo biyo daawo xoolaad daawadad cunadad cunno xoolaad intaasaan codsanaa inta waxaan ugu baahnaa si degdeg toddoba hadaa wax loo ku keenin waxba si laga noqonaya waxa laga baxayo orad ma laakiin isbedel xoog la lagu dhaaxayo marka sidaas waxaan u codsanaa wax loo keeno dadka ku daba jira waa caadi sidaas waxaan u codsanaa wax degdeg loo keeno oo dawladda Puntland aan ku codsanaa oo dawladda federaalka ah حسن الشيخ محمود كعدسانا هذا عالم كعدسانا سوالنا وحيسته أو تجارتها كعدسانا ماشي على العالية تدبري وحدك دقيقة كيلو هديك لو حاسس إنك القضاء هي دد يدوي أنت أساك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا على ماشان أبارت ورطة ضلك صومالي ولن بيكتشرته صومالي ولن بيكتشرته وحنا كسارك الله سبحانه وتعالى waxa weeye wax ka qaban kara bilaadan wax ka qaban kara ma aha balse waxa weeye meeshaan waxay ahayd meel hawd ah oo baadiye tuulo baadiye bay ahayd xoolaha nool bayna ku xisaabtamay shidhe kuna noolay haday ku noolayd waxa weeye xoolihii noolaa raxmadii baa yaraatay raxmadii hadii ay yaraatay wax dhulka wixii ka soo bixi jiray baa dhamaaday xoolihii hore way u dhamaadeen mar labaad wixii soo kacay oo abaartii dambe soo kacayna waxa way hadana way dhamaadeen intii hadhay oo roobka yaraa wax ka daaqayna marakan bay waxay taageen xaaladoodu waxay taagan tahay si ilaahay xaalkeeda og yahay bay taagan tahay waa lagu noolaa waa la raran jiray waa la maali jiray waa la gadan jiray waa la qalan jiray barwaaqo badan baa lagu qaday hadii lagu qaday xoolihii maanta xaaladoodu waxay maraysaa la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah war kala male إن إلهي الله برينا والرا وإسلام أشهاته إلهي سبحانه وتعالى الله بريه أو إلهي الله بريه الله يسكحره وحي ددال قبان كرا أو إسلامنا أي ددال قبتانا ولا الكوذا وحكسيهم وحي لقبان كران أي لقبتان بلو باهنيها وحاول إن لقفنا وحاول السقو دبق هرده بريسكي سكوعنو له مسلم بانا هاي منا ميل حوري سنة كوب اختيار سنة كوب اختيار إسلامي ماذا صح ذا كمتشدو لا إله إلا الله محمد رسول الله لقصة هل lagu shaqaysto waxa way anaga waxa way waxaanu joognaa tuulo waxa way xoolaha nool baanu dhaqan jiray xoolihii xaaladoodii way naga xumaatay ilmaha yaga bigays baanu siinaa ka dalay male caruuraha waxa la siiyaa shaah bigays baa la siiyaa
waxa weeye meel walba qofkii miyiga dadka tuulada waliba anagu tuuladaanu sii joognaa dadka tuulada xoolaha miyi baanu ku noolahay dadku markay caanaha noo soo iibteen baanu gadan jirnay waxbaanu ka dayan jirnay waa la waayay waxa weeye marka anagu waxa weeye dadkii maanta laa ilaaha illa allah waa nool yahay laakiin wuxuu raac male dumarka iyo caruurta ka waran dumarka waxaanu leenahay shayba baan leenahay dad shayba baan leenahay dumarka iyo caruurta xaaladoodu de way sii hooseysaa walba dad tabar yar ahay wada sii hooseysaa shayba baanu leenahay naafooyin baan leenahay kuwa waxa weeye de xaaladu way saasiba ku sii kala hooseysaa anigaan hadlaya kun baa iga sii hooseeya oo ilaahay xaalkooda qof walba xaaladu meel bay u maraysaa hadda waxa weeye waxay la tahay dad badan way qabaan hawsha qof hadla iyo qof aamusan waa la ogyahay magacayga Saalan Jaamac Ismaan baa la yiraahdaa meeshaan waxaan ku noolahay lacala la yiraahdo ilaahay xaaladiisa xaalad jiilaal adag baa lagu jiraa warkuna waa inta hesheen oo la idin sheegay annana waa ka daba geynaynaa dad iyo dunyaba ilaahay islaam baa loo baahan yahay waa inta warbixintooda waa inta haysaa shaybabka iyo caruuraha iyo dadka laclaca meelaha yaalay wax ilaahay wax gaarsiin karo kuwa wareersan oo iska rooraya iyo xaaladdu ilaahay islaam ugu baahan tahay hadda idinkuna dawladda na soo boqodaateene hadda khayr allah idin soo dhiib haweenku waa inta waxa weeye waa dadaan shaqaysan oo meel wax uga imaan oo xoolo dhaqataa xoolaha warkooda waad haysaan waa la idin tuftiray beena la idin kama sheegin dadkii hadda xoolahaas ku noolaayo shafiicsan jiray oo hadda maamulkooda iyo macbiishooda yaqaan intii ku hoos nooladii xooluhubana waa jiilaashan yihiin waa jilicsan yihiin dad tadaas haddii la kariyana wax yaabis waa wax la isaga daba kalaabto habariba habar tiraado maxaa koomba ma haysaa caruuruhu waa taabigayska la siiyo dii la doono kuwaan bigayska helin haddee warku waa intaas ilaahay baan baryaysa ku jirnaa islaamkana waa loo codanaya waa la gaarsiinayaa assalaamu calaykum waraxmatullah waa ku sugu kuune sodog iyo ninkii gabarh ka qabay wa isa seegeene kisiqiyahaban bakayl saaka ku hubaaye lama kala sitroona ee hadeerto siman adduunkiiye oo siiga case mooye ma arag saatan oo kale haddaan saatirkeen aanu yasirin saakan sida joogtaa sulfatay oo sidii solay madow waa idin salaamay raggan idin noo yimid waa salaamay aniga oo magacayga la yiraahdo Cabdirasaaq Faarax Nuur Warsame joogana tuulada Sarmaan kana tirsan gobolka Nugaal waxaan idin sheegayaa oo warbaahinta u sheegaynaa oo culimada diinka guddiga abaaraha u sheegaynaa abaar baan garaacaysa abaartaasu 3 sano wayna wadataa dad iyo duuyo wax dhaqan oo fiican ma aysan jiraan waxaan codsanaynaa in la ka soo gaaro oo il daymalena la ku dhugto il raxmalena la ku dhugto islaamku guddiga abaaraha culimada diinka dawladda Puntland waxaanu ka codsanaynaa il daymale in la ku dhugto maxaa jira xoolihii waa si baaba'ayaan dadku xooluhu ku noolaa xoolihiina waa dhumeen caafimaadka waa ka xunnahay dhanka biyaha dhankooda waa ka xunnahay xoolihii waa si dhamaanayaan dadkiina waa ku daba jiraa maxaa jira dadku xooluhu ku dhaqnaa 13 sano ayay magaalada tuuladaanu dhisnayd 115 qoys baa ku nool xoolahooda irsaaqsan jireen xoolihii abaar baa dhamaysay waxaanu codsanaynaa in la ka soo gaaro barkadii waa kuwa waa maran yihiin baabaha weeye waxaan loo ku imaanayo waxaanu codsanaynaa degdeg in loo soo gaaro wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum halkan waxa ka hadlaysa Canab Cabdi Aadan waxa weeye walaalayaal anagu waa abaaraysanahay waxaanu nahay reer Sarmaan waxa weeye abaar baan haysan 2 sano abaar baan haysay hadda waxa weeye baraagu waa naga qalalan yihiin biyo lama haysto waxa weeye xooluhu waxa weeye baad lama haysto waxa weeye baad lama hayo 2 sano abaar baan garaacaysay de waxa weeye guddiga sharafta leh maxaan ku yiraahdaa waxaan rabnaa guddiga abaaraha sharafta leh waxaan rabnaa dawladda sharafta leh waxaan rabnaa insha Allah in la ka soo gaaro waxa weeye si degdeg in la ka soo gaaro baan rabnaa dumarka xilliga abaarta waa la iska abaaraysan yahay
waxa weeye ayaga ugu nugul waxa weeye de waa iska maxaan ku radaa iska nafaqa la'aan baa iska jirto de waa iska dumar oo iska nuswaan xogaa waa iska rag waa ka tabaryar yihiin ayagu waxa weeye waa iska maxaan ku radaa iska ciyaalay de waxa weeye waa iska caafimaadku waxa weeye waa xogaa waa seereeyo de waa la iska waa maxaan ku radaa la iska abaaray caafimaad meeshaan male xarun caafimaad male waxa weeye waxa ranaa si degdego in loo soo gaaro dilaad insha Allah saaka ku hubaaye lama kala jitroona ee hadeerto simana duunkiye oo siiga casimooye ma arag saatan oo kale haddaan saatirkeen aanu yasirin saakan sida joogta sulfatayo sidii solay madow bay ku socotaaye samrise maayo oo eebbeheen waa u saburayaaye sidii yaan ishaartana ilaahay waan ka sugayaaye nafsi suuxsan aan jiray ilaahow sarayu soo toosi xidigiisu ma isnaa ilaahow saaka naga guuro saxalkiiyo mariiqiyo ilaahow sabanna weydaarto sidaa bari ilaahow madax sallaxan subax ka soo boodo allow deeqa waa sugahayaye sabadka noo dooji barwaaqadii sallaxan buu nafluhu saami ka helaaye sixintiiyo garoorhkana magacaygu cabdiraxmaan faarax diiriye gudoomiyaha deegaanka Bandar Salaam hoostaga degmada Buurtinle marka hore ilaahaya mahad iskale deegaanka Bandar Salaam iyo hareerihiisa waxa ku nool dad 450 qoys dadkaas boqolkiiba 70 waa dad barakacyaal oo isugu jira dadkii hore oo ay keentay abaartii sima iyo abaarta haatan jirtaba ilaah baa loo cotaay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada guddiga abaaraha heer gobol iyo heer degmaba dadkan inay si degdeg ah ula soo gaaraan qutul daruuriga ay cuni lahaayeen waxay ku nool yihiin nolosha tii ugu hooseysay waxayna u baahan yihiin gurmad degdeg in lala soo gaaro oo caawimaad ah waxay u baahan yihiin dadkan dhiig joojin Bandar Salaam male xaruntii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka waxaanu codsanaynaa dadka in si gaar loo eego lana soo gaaro gurmad anagu ka maamul ahaan waxa diraan awoodno oo dadku markay deegaanka soo galayaan inaan raano halkaan daga oo meeshii degi lahaayeen la geeyo oo meel la isugu geeyo oo maahay awood kale aan ku dhaano inaan u qareenno oo dawladda aanu la socodsiino wixii hadda dalka ku soo siyaaday maahay wax awood oo aanu dheernahay ma jiraanin dad macnaha siyaalo gaar ah la isku caawiyo oo reer warba reerkii dulsaar uu ku noqon karo iyo loo habeeyo maahay awood kale oo aanu u qaban karno ma jiro hawa cabdi xirsi waa fiicannahay maasha Allah dowladan Dar Salaam baan joognaa dadkii dhawaan soo galay maanu ahayn oo xoolihii ka soo xumaadeen ka soo abaarsadeen haddaan soo galana dee alxamdulillaah tal baan ugu nimay waxa weeye waxaan hadda anagu gacanta ku haysanoo biilana ma jiraanin wixii ilaahayna siinana biilana haddana waxaan u baahannahay dee wixii nala heli karo alxamdulillaah hadee waxa weeye waxaan ka codsanaynaa ilaahay iidankii waxaan u baahannahay inaan helo oo hoy ma haysano oo xoolo ma haysano oo wixii hadda dunya ay noolaana abaar baa marka silcinayso wadwada alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan khayr ka baryanaa hadee wixii nala ku taageeri karo inaanu helano ilaahay ka rajaynaa xoolihii maxaa kaaga haray xoolihii waxaa nooga haray ari gaban oo aan hadda agab lahayn oo jilaalkaas ii wiifayo alxamdulillaah hadii ilaahay hadda roob siiyo xun waa noqon lahaa laakiin hadduu abaar sii joogo waxaa deer inaan sii leeyaana garanay alxamdulillaah roob ma ilaahay unu siino waa rajaynaynaa wixii hadda aanu heli karana dee waa alxamdulillaah meeshaan ka helno taano hadda magaalada sidee ku qaabila sidee nii qaabila magaalada markaa soo degtay magaalada waana la soo dhaweeyey waa degnay wuushashubaan dhisanay
waxa weeye dad talaan ku nimid oo joognaa maan u nimid waan joognaa bushashkayana ku hayna ciilaan siina waa ku quudana nafsi suuxsan aan jiray ilaahow sarayu soo toosi xidigiisu ma isnaa ilaahow saaka naga guuro saxalkiiyo mariiqiyo ilaahow sabana weydaarto sida bari ilaahow madax sallaxan subax ka soo boodo allow deeqa waa sugahayaye sabadka noo dooji barwaaqadii sallaxan buu nafluhu saami ka helaaye sixintiyo garoorkana ilaahow sabiga loo dhiibo seeg hadduu yahay darbaan socod awoodayne soomaaliyo edel ilaahow madarkoo samayo